Ma qiyaasi karo sida uu dareenkaygu noqday markii aan maqlay geerida been abuurka ah ee lagu qoray baraha bulshada. Balse daawaday waxaan kuu soo gudbin doonaa xaqiiqada dhabta ah ee uu ku sugan yahay Faarax Murtiile iyo qoraallo caddaynaya in uu nool yahay Faarax Murtiile. Waxaana soo gudbin doonaa daawadayaal sida oo kale shakhsiyaal caan ah oo ka faa'iideysanaya arrintan iyo kuwa kale oo raba in ay beejaj ku kacsadaan. Haddii aad horay noola joogtay waan kaaga mahadcelinaynaa, balse haddii aad tahay qof nagu cusub waxaan kaa codsanaynaa in aad ku soo biirto channelkan oo subscribe saarto gambaleelkana furato si aan markaan wax soo dhignaba kugu soo dhacaan. Saaxiibadeenna sidoo kale waxaan inkaga codsanaynaa in aad fiidiyogan like saartaan si uu u gaaro 100,000 oo ku wareersan inuu Faarax Murtiile dhintay in kale. waxaana naga saacidaysaa muuqaalkan haddii aad like saarto in uu dad badan gaaro weliba si degdeg ah. qof walba oo daawadana waxaan ka codsanayaa in uu muuqaalkan like saaro si ay dad badan oo walwal ku haya dhimashada Faarax Murtiile sida anigoo kale ay xaqiiqadu u gaarto. sida ay xaqiijiyeen dad ku dhow abwaan Faarax Murtiile ayaa waxa ay sheegeen xaqiiqada kama dambaysta ah ee noloshiisa iyo xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagayso. Faarax Murtiile oo shil ku galay toddobaadkan gudaha waddanka Ingiriiska ayay dad badani siyaabooyin kala duwan uga hadleen arrintiisa. waxaana sidoo kale Faarax Murtiile shilkan la galay gabadha kaamirawamanka ah ee lagu magacaabo Faiza Amiir. inkasta oo si shakhsiyan ah Faarax Murtiile loogu qoray Facebook ama page-ka been abuurta ah geeridiisa. waxaana jira sidoo kale markii laga soo tago been abuurkaas dad badan oo ka hadlay in ay been abuur tahay arrinkaasi. dadka caanka ah ee beeniyay kana hadlay arrinkan waxaa ka mid ah Farxiyo Kabayare oo barteeda Facebook ku soo qortay in uu warkani been yahay, Faarax Murtiilena uu yahay qof nool. Soomaalida oo inta badan dadka nool xitaa dila ayay Farxiyo Kabayare sheegtay warkani in uu sal iyo raad toona lahayn, taasina ay tahay ujeedo gooniya oo dadu ay leeyihiin. sidoo kale Nasteexa Indha ayaa Facebookeeda ku muujiday arrinta Faarax Murtiile iyo noloshiisaba, waxayna ay sheegtay in uu Faarax Murtiile nool yahay, taasina ay been tahay. dad badan oo ku sugan gudaha waddanka ayaa iyagu noo xaqiijiyay arrinta noloshiisa Faarax Murtiile, waxaana ka mid ah Maxamed Deekow oo ku nool gudaha waddanka Ingiriiska oo sheegay in uu nool yahay Faarax Murtiile. Maxamed Deekow oo aan la xiriirnay ayaa waxa uu noo sheegay waxa uu nooga warbixiyay xaqiiqada dhabta ah ee nolosha Faarax Murtiile, isaga oo noo xaqiijiyay in uu Faarax Murtiile dhiman ee uu nool yahay marka laga soo tago geeridiisa been abuurka ah. haddaba dad badan waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta arrinkani loogu qoray Facebook waa geerida Faarax Murtiile oo baraha bulshada loogu baahiyay. waxa kaliya ay tahay in ay ka faa'iideystaan arrintan oo ay kiciyaan ciwaano ay ayagu leeyihiin kuna kiciyaan arrinta Faarax Murtiile. ciwaanadaas oo doonaya in ay ku kasbadaan dad badan oo beejadkooda soo xirma, taasi oo ku qasabtay in Faarax Murtiile oo nool ay dhahaan wuu dhintay. waxaan filaa in aad wax badan ka fahanteen muuqaalkan. fadlan like saar adiga oo mahadsan, siina share garay oo la wadaag asxaabtaada. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.